السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك بحر فتوش channel سودا وهذا ولاشين فتوش channel كداوين سيروا فتوش channel ما شاء الله ما أنت سافرك سو أركتين واقص قصوينك يعني وحالي هذا ما أنت encouragement تيجي اللي رجل أنت بركة بعته حربا قصل إلى إن كنا مايو شاكو وحن كذا شاكين دونا قصة يعني ضدك ودن كان مركي إمامك كل على أنا قصة إذا بارت كنا قمونت إن شاء الله iyo kuwa kale oo hadda ku hor amaamooyinka maqla maxay ku saabsiin driving gaariga dadka qaarkood waxa waa driving gaariga shactirooyin baa ka soo qabsada aniga waa kamid ah dadka ka qabsatay waxyaabaha qaarkood marka gadaal u fiiriyo aniga isku qasla marka idinka rabaata waa inay ka qasrisiya yani horumarka ama qofka in uu waxyaabaha uu soo dhaafay uu ku qoslo marka qaarkood uu isku qoslo waxay kamid tahay dadaalka iyo juhdiga aad soo gelisay noloshaada okay so waa part of life sida dadka opposite waxa laga yaabaa in aragto tahay no waxaas kama sheekaynayo wax yani ka cabsanaya inay background-koodii ama waxyaalaha qosolka badan ku soo dhacay dadka ila sheekaray السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحاي ما دهي عاد قروح بدن waxaad ka heli kartaa store-kana online-ka telefoonka naga soo wac ama snapchat-ka igala hadal sidoo kale waxa imaada gooyaashii sariiraha iyo miiska qadada alaabtii la saarayay shibna waan sameynaa insha Allah marka driver sheekada ku saabsan maanta hadda ka hor waxaan daawaday sheeko kulli qofkii arkay waa dhihi kartaa يعني because حوجا واسكودونا مفهمسة يرى واسكودونا مركي نقطة درايفينكا واحد عضي ماما الصومالي انت من صورك العضي واحد هذا حتى كهر اي واحد عضي انا برمد وتحال ماما ما ولا لكن ماما ضعنا نشير كرين دونا انا قلت هيدا اي غيب كتها سو ايضا كهر مرينا واحد عضي واحد تري حتى كهر اي واحد عضي انا قارق وبرنا يتري او برمد وتا oo gaariga wada ayaa waxa dhacday ay booliis ba ku shitay barmid bay wadataa booliiski wax markuu ku shitay ay waxay samaysay way istaagtay booliiski markuu damcay maamadii inuu la hadlo ay waxay dhahday call kale ayaa u soo dhacay oo wilmar qofkii garaa waa Minnesota baabada meel waa loo turjumaa hadaya waa loo turjumaa bis waxay dhahday baabuurkii u galay ilaa case waxa u soo dhacday cabaaray kala fog yihiin waxa u soo dhacday case yani very serious maamadii uu iga tagay tirninka gaarigiisu gashay uu shitay uu carab gaarigayga aan galay tir faqtax aan ka daba dheeyay waa ka daba orday booliiska way ima jeeday tiracaysan isbiidku ku socdaan walaa waa qasray shakaas ka dhigay isbiidku ku socdaan waxay dhaadaan nalki gaduud u jaraa ولا عرري ساو دبع عرر وماشي accident وكدعي يماشي لو ودي ايو دق waxay tiri aan kula baakin garaysto raac waaba soo degayna maxay soo ka daba dhigay markaasay tiri soo adigu soo iima ordin ana waan ka daba ord hadda kor qasano aso exactly ay la iga sheekay oo qof ku dhacday qofkii ku dhacay iga sheekay marka waxay taagtay aad oo qasra baabaas waliba been shir ay ka sheegay waa loo turjubaya waa in Minnesota waxay tiri booliiski yaab waxay tiri kaaga darar waxay ugu qasalka badnaa asaga baa ceyrsanay ma ogiye barmid baan wataayo gurigeygii meel uu iga jiro maba garanayo gurigeygii meel uu iga jiro maba garanayaba baabada waxay sameynaysaa waxay leedahay waay adaa isoo istaana taasagu ma dhaadee markii asaga waxba ka qorin ayuu iskaga tagay ma fahmaysaa waxa la rabaa inay tiri alxamdulillah alaabteedu markuu siiyo iska tagtay soo qofka saas iska leeyahay booliisku wax kale u soo dhacay iska haray ayada wadankii ma garanayso booliis hadda baawurka wadaa bakata waa iska bursan waxay noqotay in hadda kadib la soo celiyo gurigeygii ma aqaan tira oo gurigeedii dib loogu soo raaco oo dib loogu soo celiyo kuwa kale xataa daawada dhahayaan alla ma Soomaali baad booliiska ku dhahay laakiin aniga tayda qosolkaaga maran hadda ka hor waxa dhacday waata in kaga sheekeeyay sida gaariga ku bartay qisada iga qabatay gaar barashada qofkan soo aragnay channelkaas ku jira channelkii kale ku jira waa horan soo share garay ma sha Allah gabdho badan baa ka faa'iideystay waxay dhan fadhigaan ka kacna fatuushay gaarigii baranay waadna dhiiro gelisay waxaan u moodi jirnay ana gaari baran karin waxa dhacday waagan gaariga inta isku dayay aan soo bartay
سامر كان برمتك وقاطع state كان صور متشوق مير كلام شوق state كلام شوقي أيان قاري وذوق يعني بلعبة عدا وحن قرنا يا مالا يرير بس مركز حوجات ده مركز وحير وضوده وحير يربان قرنا يعني مكسيدو لو تجد كان جاس ستيشن سكول كولج كسلات الله وحير أنا وسكول دوي كسوا you know it's not like big like ما صار طوله معه بس waxaa dhacday gabar ba isla deganeen true media friendskayga badan baa joogay aan isla deganeen ayaa mid baa galab meel aaday shaqi aad soo waxbay hilmaantay anagii baa tuurnay aniga markaan tuuray cidda dhalay waxba isma dhaado wada barmid socda bas waa la iska struggle gareynaa struggle is real okay bas markaas gabadha waxay dhahday wax baan u baahnaa waxaas in la ii keeno baa jirto soo waxay noqotay lama quraan inaan gaariga wado حاجة هو متعرف وفورك بعته وبرك الشقة لقى صبح هلاي ديو وين ويد وانقرنا يا لك وانقرنا يسقفكم مركو قاري وكل عسوبي هاي ماله وفير لها وحا كجو حب بدن عبسيده وعبسنا يسوى حلقة يابا هذا أبنالك إنه رابها إنها جدبتك أما اسكت ده قاد إنها السميسيد because أنت حكماني وعصبت استيريكي أنت باور مدرب يكره يعني واحد يقول جرا استراجل سريع عنها بس قبل واحد ترى نواب نج إلا فورا كلا هيلي لام تونكي بكتشوكتاي لام تونكي اسكسي دافعت شدها قبل تقول واحد صوص ساعتي إلا درايفنك وحبك أقولي منه زيرو بس أنا برمد باوت عيد زيرو برمد حتى يعني مالك عين كري وان تجي إلا عفر وضوء الساعة سوى الجود وونوي هيلي شبله إلا يقول على غطي نالكي بحرنا مركش اعتراض عن سمين دون فيريا نالكي بحرنا نالكو ديو فوق بحرنا سو ودا waxaan u galay waa xasuusta ride ba u galay daaq mise waxaan tagay waa winter waa aragta dhaqso ayuu dhacaa waqtigu u dhacaa yani qoraxdu dhacda nalalkii ba u wada shidan saacadaas waa 4:30 meelahaas marka shaqooyinka laga soo baxo dacwan u galano markaan u galay mise 4 jid oo gaari ay soo horjeedo inta istaagay gaariyaashiisa nalkoodii ka xiran markuu nalku soo baxo looguma tala garin in laga hor imaado waa weyn soo dhinaca kale bis u gari karay waxaan u gari karay right ka leftiga dalab qura bis marka u galay what gabadhii ma u sheegaymo hadda jidka anigu mari lahaa aaw saytira wala oo xagee maraya ma ku yiri kulligood qaybteedii aaw yani lama ka galay uma jeedina weyn soo galay wixii ugu yaab badan waxay tahay islaanta oo isla indhaada jaa marka hadalkii iri iyo gaariyaasho soo wada kacay anaana ku go'an waaba isla si gardarna gacmaha inta ay tahay wars qaybteedii aaw jaa wan arbaawurka aan la soo struggle gareynay oo cabsanayay oo my first day of downtown ay tahay cabsidii ba iga tan badatay ee one way waa la soo baray one way waa aqaana okay laakiin cabsidii ba intay iga tan badata dhoontoonkii aan galay ayaa waxa kaliyoon ka fikiraya waxay tahay gurigii baarkinkiisa goormee tigi doontaa jaaya meel la maray lama ogaya gurigii baarkinkiisa goormee tigi doontaa bisaniyadii ku jirta ama gabadha u tigi doonta GPS loo isticmaala waa garana GPS waa soo gashtay laakiin niyadeedii ilaahay wuxuu ka baxay inaaban meel weyn weeye galay war qaybtaydii aaw gaariyaashii intee dhammaan afartoodii baa waxay ugu dhansaanay kala firee يعني dad fiican ay soo aaday because wada weyn oo daaw la dhahay ma wada iska caadi dhoontoonkii laakiin waa wada weyn oo for wada u soo wada jeeda kaas waxay ugu dhahan markay gacmihii saa ka wada siiyeen kulligood kala firee yani qalada ku jirta kala firee markii uu furmeen soo kacaan kala firee dhahay gacmihii markay saa wada dhahan faham alla hooga anigii gaarigii ba kala dhaqaaj naxdin waxay ila noqotay gaariyaashan ay kala jareen because you know I'm new wadanka waa ku cusbahay gaariga waa ku cusbahay wixii waa ku cusub markay dhahanaan xogaa waxa ahaa dadka you know like geesiga waxaan sameeyay marka arkayna qaladka ku jira maxay baraf noqday aan u kala wareegay dirra baar kugu qaadanay you know gaariga marka ku cusub ina xataa kala wareegtid ba waxay kugu qaadanaysaa saacado adi calaay taxal waan rafaaday gaariga waan kala wareejiyay waan baxay jaa markaas maantaas ayaa igu horeysay geesinimo because weligay ila qalad ma sameey ilaa labada albaab le aadaan aqaano college ka galaa waa ka soo baxay gurigeena asaga 3 minutes isku jira gas station ka shubara dukaanka meesha yara u marayna waday ilaa weligay downtown hadhow maxaan sameey geesinimo aqta downtown kii wuxuu in noqday biyo weyn ka raac
baagana war waxa la dhigi jiray barkii qof weyn uu aadayo iyadoo siil tahay ay tahay maxaa la dhigi jiray wadan yar tuulo yar iska tahay tuulo ma yaro magaalada caasimadda waa state-kaas laakiin state markii la soo raafiyo tuulo waxaan ku noqday because of galabtaas qaladkan galay galabtaas qaladkan galay ayaa waxaan ku noqday inaan raana bood ka dhigto dhantoonki dhirac ganka gababa because of maantii naxdintii iyo cabsidii maantii iga dhacay so in qofka waxaad arkaysaa sometimes inaad fail graysid yani oo wax kaa qaldamaan haddana inaad ka ciweysaa darala inaad ka kacdid waxay ku tusaysaa geesnimo because waxay ku tusaysaa wadadii aad ku qaldantay ma ku noqonaysid fahmaysaa ma aad ku noqonaysid waad ka leexanaysaa oo waa garanaysaa wadadii kale sida loo qaato marka maasha Allah aad baad u mahadsantihiin sida story-gayga dad u dhageysateen maasha Allah mashquul ba iska hay markasta waxaan jeclahay story ama aan ku dhiiro gelinayo inaan la soo share gareeyo hadii Ilaahay idmo thank you inta dib u kulmi doono Fatush family oo ku dhahaysa maalinta ku wacnaata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh